dhegeystayaal halka aad kala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhageysanaysaan 88.5 FM CJSR.com iyo weliba barnaamijka baraha bulshada oo aad si toos ah nagala wada socotaan anigoo Jacfar Isla ayaa barnaamijka idiin daadihinayo mar dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii miida sugaanta Abwaan Sahal ayaa noogu marti ah marka horese aan isla dhageysano Prime Minister Mark Carney on unwinding the mountain of destructive legislation and policies that have ravaged our provincial and national economies this past decade. Until I see tangible proof of real change, Alberta will be taking steps to better protect ourselves from Ottawa. As a start, I will soon appoint a special negotiating team to represent our province in negotiations with the federal government on the following reforms requested by our province. We hope this will result in a binding agreement that Albertans can have confidence in. Call it an Alberta Accord, if you will. Hey, waxa ay tiri ugu yeer Alberta Accord haddii aad rabto heshiiskii Alberta ugu yeer codka aad maqlayseen waa gudoomiyaha gobolka Alberta Daniela Smith oo isniintii khudbad u jeedisay bulshada reer Alberta iyo Canadian kale oo iyaguna daawanayay khudbadan dhageystayaal sida intiina badan ku wada maqasheen waxa ay ku saabsanayd hadaladeeduna saldhig u ahaa inay Alberta xorriyad u hesho wax soo saarka shidaalka iyo macdanteeda iyadoo doonaysay sharciyo badan oo dowladda federaalka ay ku soo rogtay kuwaas oo la xiriira sharciyada adduunka iyo heerarka la doonayo in adduunka kuleelka ku socdo wax looga qabto sida aligeedna hoos loo dhigo waxyaabo badan oo wax soo saarka shidaalka uu dhibaatooyin ugu geysanayo bay'adda Daniela Smith waxay rabtay sharciyo dhowr ah in wax laga bedelo waan maqli doonaa codadkeeda laakiin waxa hareeyay oo waxaasoo dhan isku fuuqsaday hal qodob oo ay ku soo dartay qodobkaas oo ahaa gooni goosiga Daniela Smith waxa ay wax ka bedeshay sharcigii aftida ee gobolka Alberta sharcigaas oo ay laba meelood oo kamid ahayeen waxyaabihii ay bedeshay kow waxa ay bedeshay tirada dadka loo baahan yahay inay soo saxiixaan si afti loo helo tiradaas oo ahayd 20% dadka codayn kara ee gobolka Alberta hadda waxay ka dhigtay 10%. waxay kale oo wax ka bedeshay oo ay taabatay waqtiga loo baahan yahay in lagu soo diyaariyo waqtiga lagu diyaarinayo oo awal ahaa 30 cisho gudaheed inay codka keenaan hadda 60 ayay ka dhigtay oo kor ayay u qaaday haddaba waxa isweydiin leh maxaa keenay in qodobadii badnaa ee ay ka hadashay wax soo saarka ahaa sharciyada in wax laga bedelo pipeline-kii in la geeyo badaha gobolada kale in la isu furo waxa ay ugu yeeraan equalizationka oo lacagta ay gobolka Alberta ay bixiyaan gobolada kalena loo qaybiyo oo ayaga aan waxba ku soo noqonin waxaasoo dhan bay ka hadashay maxaa sababay in ay carabka ku adkeeyaan warbaahinta iyo dadka kale oo dhanbo qodobkii gooni goosadka oo keliya su-aashaas iyo kuwa kaleba waxaan uga jawaabaynaa barnaamijkeena oo kooban balse marka hore aan isla dhageysano qayb ka mid ah hadaladii Daniela Smith billions of dollars more to the federal treasury for use in other parts of the country than we'll ever receive back in benefits. We have allowed this to occur because, quite frankly, we know how blessed our province is with an endowment of natural resources that no other country on earth possesses. And we want all of our friends, families, and fellow Canadians across the country to benefit from it. We don't ask for special treatment or handouts. We just want to be free to develop and export that incredible wealth of resources we have for the benefit of our families and future generations. Free to pursue opportunities with the ideals of entrepreneurship, hard work, and innovation that have become synonymous with the name of our province. Freedom to choose how best to provide healthcare, education, and other needed social services to our people, even if it's done differently than what Ottawa has in mind. Strong and free is more than just our provincial motto. It represents who we are
and how we want to live as a people. And that is why Albertans are so frustrated with the direction of our country. codkaasi mar kale waa gudoomiyaha gobolka Alberta Daniela Smith sida aad maqlayseen waxa ay dowladda federaalka qaasatan xisbiga liberaalka ku eedeysay inay caqabad ku yihiin wax soo saarka tamarta gobolkan Alberta haddaba arrimahaasi maxaa ka runa maxaa ka aan dhab ka ahayn waa su'aal kale waxa uu kaliya naga xusuusinaa in dowladda federaalka ee Alberta liberaalka ay ahayd dowladdii dhistay pipeline-ka gobolka BC haddana Alberta billions of dollars ka samayso maalintii pipeline-kaas dowladdii federaalka ay ka horeysay Justin Trudeau ma aysan samayn mid kalena ma aysan samayn conservative-ku 9 sano ayay dalka talinayeen oo uu xukumay Stephen Harper Pierre Bolivarka hadda musharaxa ahna uu ahaa wasiir ka mid ah dowladdaasi marka intaas waa naga xasuusin haddaba sidii aan haddaayay taabtayba waxaa hadalladeedii wax soo saarka ku saabsanaa ka xoog batay arrinta gooni-goosadka dadku waxaa inta badan ku eedeeyaan gudoomiyaha gobolka Daniela Smith in ay u janjeerto dhinaca midigta fog ee xisbiga conservative-ka qayb yar oo ka tirsan qaybtaas oo ahayd qaybtii ololaha lagu riday gudoomiyihii gobolka hore ee Jason Kenney ka dambeysay ayada inay soo baxdo oo hogaamiyaha xisbiga noqotana suurto gelisay marka in ay isku dayeyso inay qaybtaas raali geliso mar walbo hadallada xanafta leh ee Ottawa iyo dowladda federaalka ku aadan oo ay soo jeedisana ay qaybtaasi ku maslaxayso waxaa la isweydiinayaa marka maxaa ka xoog badiyey ereygan gooni-goosadka waxaa hadalladii ay tiri oo dhan maxaa ugu xoog batay ereygan gooni-goosadka dabcan gooni-goosadka sida aad ogtihiin waa arrin bannaan oo dadku ay ka hadli karaan oo ay dalban karaan laakiin khasaaraha ay leedahay ayaa waxaa ugu yar in colaad badan oo hadda aan jirin ay bulshada ka dhex abuurto oo kuwa taageersan iyo kuwa ka soo horjeedo ay isculaadin doonaan annaga waxaa noo gooni ah oo gaar inoo ah dadka soo galootiga ah khaasatan dadka midabka aan caddaanka ahayn sidii ka dhacday gobolka Quebec 96dii markii laga guuleystay gooni-goosadkii waxa ay eedda saareen waxbaa ka jirana waa la dhihi karaa dadkii soo galootiga ahaa oo iyagu doonayay inay Canadian ahaadaan oo aan u ololeynin aan taageerin una codeeyey in Canada la wada joogo oo aysan Quebec weyn dhinacyo badan baa loo muujiyey dhibaato badan baa lagula kacay dad badan oo dadkaasi ka mid ahna waxay u qaxeen gobollada kale ee dalka Quebec way ka guureen markii ay dareemeen culays saa'ida gobolkeena Daniela Smith waxaa aad loogu eedeynayaa in ay durbaankaas tumayso waxaana ay hadda carabka ku dhufatay khudbadeedii Isniinta ay soo jeedisay 5 bishan in aysan dowlad ahaan xisbiga UCP ee xukuumadda ah aysan soo jeedinaynin in afti la qaado balse ay soo dhaweynaysa haddii ay dad weynaha qaar ka mid ah ay soo dalbadaan shuruudihiina soo buuxiyaan waxaa xusuus badan dhegeysow in ay shuruudihii iyada hoos u dhigtay oo ay fududaysay maalintii ay hoos u dhigtay maalmo kadibna ay leedahay waxaan soo dhaweynayaa haddii ay dadweynuhu dalbadaan waa dimuqraadi marka micnaheedu waxaa weeye iyadaa la shaqaynayso si kastaba ha noqoto gobolka Alberta waxaa nagu soo food leh olole gooni-goosi kaas oo ku bilaaban doono haddii eebaha awoodda la yidhaahdo aftida 10% dadkii codeeyey doorashadii u dambeysay ama codeyn karay ayaa la doonayaa in la keeno codkooda waxaan u malaynayaa 170,000 oo qof ay 177,000 meelahaas inay tahay 177,000 haddii codkooda la soo gudbiyo afti ayaa la aadayaa dadka qaar waxay leeyihiin waxaas oo dhan waxaa ka horeeyo dadka ogaaga ah First Nationka in ay ka helaan ogolaasho inta aan aftidaba loo ololeynin sababtoo ah dastuurka ayaa qorayo ayagaa dalkan iska leh
afti lama qaadi karo ayagoon marka hore ayaga aan la soo saarin waddada oo aysan raalli ka noqon haddii eebaha awoodda la yidhaahdo barnaamij kaa ku saabsan ayaanu dhowaan qaban doonaa waxaan rajaynaynaa arrintaas inaan faahfaahin fiican aan ka bixino tan iyo toddobaadka dambe ayaan idiin soo diyaarino barnaamij dhinacyo badan taabanayo oo ku saabsan arrintaa iyada ah halkaad weli nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhagaysanaysaan 88.5 FM cgsr.com iyo weliba baraheena bulshada Facebooka, YouTubeka, TikToka iyo cgsr.com oo aad toos uga dhagaysanaysaan saaxiibayaal barnaamijkii miiddaa mar noo soo galayo